oo waxa loo qabanayaa uu yahay nin gaaleed inuu qabsado meesha tan bal malik qashtaala intuu kibray markaasi waa Alfonso Saadis isagoo waagii hore aabihii markuu boqortooyada ka dhintay ee saddex nin oo walaalaaba ku qaybsadeen mid baa dabeetana labadii kale baa soo eriyaday oo meesha ka qaaday Alfonsahan isagoo qaxoontiye buu Talaytile yimi Talaytile joogi jiray boqorkii Talaytile soo dhaweeyay meelahan oo dhan buu tustusay wixii oo dhan markuu soo eegaaga uu noqday ayaa walaalkii dhintay markuu walaalkii dhintay boqortooyadii isaga dib loo siiyay ninkii halkan qaxoontiga ku ahaan jiray ee dib loo diray ee meeshii tagay meeshii buu dib ugu soo duulay markuu meeshii qabsaday Alfonsahan madow Afrika joogo kala siisay weeyaan meeshuu qaxoontiga ka ahaa ee uu shalayto qaxoontiga ku ahaa ayuu dib uga soo duulay markii uu la saaray meeshii dib loo saaray wuxuu gaadhsiiyay markaasi xad uu gaadhsiiyo in jisyada markuu ka qaado yani culimada taariikhda haya maasida markay ka waramayaan maasida qaarkood yani culimada taariikhda kamid waxay warinayaan inuu soo diray nin kamid ahaa boqor wasiiradiisii oo yiri lacagtan la isiinayo jisyada si fiican u soo baadh lacagtu de waxay ahaan jirtay dahab iyo fidda marka lacagta laga qaadanayo nimankan naaqidiinta ah ee baa jira waxaan eega inuu real yahay iyo waxde macdan aan real ahayn inay tahay marka lacagtii markii laga ururiyay wixii المعتمد بالله كي لو رنجري ماشي سمركي لا جوغي ايو wuxuu ku yiri boqorkii arrin kale uu soo faray waa boqorkii yaray qashtaala haystay ma maxay buu arrinta kale uu soo faray boqorkii wuxuu yiri waxa gabadhaydii baa u mulaysa dabeetana nimankii qisiisiinta ahaa wadaadadii baan la tashaday tala waxa la ii sheegay in loo baahan yahay si aan muslimiinta uga xoog bato oo aan ugu wada qabsan karo in islaantaydu ay ku umusho masaajidka Qurtuba oo codsi uu soo qortay malik qashtaala boqorkii al-mu'tamid billah ishbiliya ka talin jiray ayuu wuxuu leeyahay Qurtuba isku haystay buu wuxuu leeyahay waxa loo baahan yahay boqorka habartiisii baa umulaysa inay ku dhasho مسجد قسطالة مسجد قرطبة ساعتك وين قرطبة يعني واحد تنكين يا وحويان ومركو الدرامي دتك كرينا دت كلالومي oo liita oo midba ku xigay iska eegayo oo midna aanu kaligii markaa iska celin karin ama aanu wax iska rabi karin uu yahay uu ka qabsaday magaaladii Talaytile loo oran jiray ayaa codsigiisu xadka kan gaadhay taasi waxay sababtay inuu xoogaa naqwa qaado ninkii safiirkiiba uu dilo loo soo diray oo dabeetana rabshada ay dhacdo oo ninkii duulimaad soo qaado oo mashaakil tira badan ay u dhaco ilaa xad markii dambe boqoradii yaryar ay soo yimaadeen oo yiraahdeen war maxaynu sameeynaa wadankiina difaaci kari mayno markaas ay yiraahdeen aanu nasriga aan soo waaridno waraan caalamul islaami dib u eegno shimaali afrika ama shimaali afriqiya north africa دولة عصبة كان دلتي دولة المرابطين لو رنجري ومركز يو كتل يعني سلفيها لو رنجري عبد الله بن تاشفين يوسف بن تاشفين اللي هذا كتليه وهذا سيد تنشرة وفرس كفوشان هذا دولة دينها سكتلين يبي ودرتين عاومة إنه صاصية دبتنا هذا يجي بعد حدود الشكية وحيد هذا إنه هدو إنه كعيار مو ينقب صداده ديبا ونكن نجري حار مسقو ما شقب صداه ما نتاسي waxay ku tilmaamaan al-mu'tamid billah ibn Abbad kaasi go'aan adag buu maalinta qaatay wuxuu ku yiri wallahi la nar'a inaan geela ku raaco saxaaraha ayay dhaanta buu yiri khanziir raaco يعني inuu ninkaasi meesha baa soo qabsado oo geela ay dirto baan ka doorbidaya in qashtaala intuu qabsado khanaziirta la raaciyo buu leeyahay dabeetana waxay qaateen go'aanka in muraabitinta loo yeedho Yusuf ibn Tashfin iyo ciidamadiisii baa yimi waqacada caanka ee zallaaqa loo yaqaan ayaa dhacday waa waqacad taariikhda aad ugu caana dibna loo jabiyay qashtaale iyo nimankii ka talinayay markaas dib loo jabiyay isaga dirqa ku baxsaday ciidamadiisa dhamaantood meesha ku jabeen
أن قصص كتاريخي جاي مسائل كان كصاب سيسان مرة بوينا بالبلادية لكن وحنا ربائنا تلمامه مجتمع عمر كل حديث يسوي ويصنعون دبتنا والنقضية كرسي كفردية كدبنا تولو واللي ما مدحوينا يسميسته waxay iska ilaalinaysaa ay tahay tuulada kale ku xigta isaguna uu waayo waligiiba magac dawladda sheegto lacag ka samaysto wax yar ha qorqoro laakiin uu waayo muqawamaat alxayaa qaabkii loo noolaan lahaa uu waayo oo noqdo waxaan isdifaaci karin ama waxba iska celin karaan waxay noqonaysaa inuu taxta saytarati dawlatin ukhra dawlad kale inuu iyada ku hoos noolaado oo wixii loo yeeriye kasta uu aqbalo si ay tiisan yari u jirto 22 dawladood baa muddadaasi yar meeshan ka talinayay oo midba ka ku xiga uu iska ilaalinayay oo dawladan kale ee meesha taala uu rabay inuu haddana nimanka waxa sameynaya dhan kale faqri ma hayn xolalaani ma jirin waa waqtiyadii ay ugu badnaayeen waa waqtiga yawmuutiin ay dhici doonto waa taariikhda waa maqashaan yawmuutiin kala sheego nin boqorada kamida ayaa islaantiisii boqortooyada xagga sare fuushay dabeetana iyadoo roobda ay bay waxay aragtay dad wadada lugaynaya oo dumar ah oo cagaha dhoobo intay ka yara fayteen dhoobo dhex socda markaas waxay tiri boqor aniguna waxaan doonayaa inaan dhoobadaas oo yara batalaqsado dabada u baxo qofka bini aadamka waxa caadiya inta ka maqan uu bini aadamku moodaa inay tahay nimcada rasmiga imka ninka baadiyaha jooga ee aan waxba haysanin talow daaraha dhaadheer marun yaa fuula buu isleeyay kan daaraha dhaadheer fuushanina yaa buraha marun kora buu isleeyo soo carcarara banaankaasi oo hiita yar buu dhisanaya waa nolosha bini aadamka caadiga ah yaani qofba inta uu haysta mooyaane inta kale uu raadceeya uu arkaa inay raaxo tahay oo inuu soo sameeyay waxaas islaantan boqorku qabo 800 hablood baa la yiraahdaa dad ku dhadhowba shaqaalaheeda aha u shaqaynayaan waxay jeclaatay inay dabada u baxdo dhoobadaasi ay soo yara batalaqsato ay soo socoto dabeetana wuxuu yiri boqorkii maad batalaqsanaysaa wuxuu amray tiinatul muluk in loo sameeyo dhoobo boqortooyaha loo sameeyo buu yiri waxa la soo gaday wadanka wixii miski iyo cambar iyo wax la isku udgoonayo dhan yaalay dabeetana hal la cajiima la yiri wixii baa la isku cajiimay meel banaana loogu sameeyay agama yar yarna waa loo soo iibiyay xambaarato dabeetana waxa la yiraahdaa halkaasi ku batalaqso waxay ku batalaqsatay markaa dhoobo laga sameeyay